السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك barnaamijka taxanaha ramadaanka addoommadii wanaagsanaa qisada ugu horraysa aan ku bilaabayno waa qisadii dulqarnayn. ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. sheekooyinka ugu weyn uguna cajiibsan oo qur-aanka lagu sheegay waxaa ka mid ah qisada dulqarnayn. allah subxaanahu wa tacaala qisada dulqarnayn wuxuu kaga waramay suuratulkahf. dulqarnayn wuxuu ahaa boqor wanaagsan, caadil ah, cibaado badan, adduunka oo dhan ayuu ku wareegi jiray si uu diinta allah subxaanahu wa tacaala u faafiyo, cadaaladda ugu dadaalo. dulqarnayn sida qowlka raajix ah nebi ma ahayn, rasuul oo allah subxaanahu wa tacaala soo dirayna ma ahayn, malagna ma ahayn. wuxuu ahaa dulqarnayn boqor caadil ah. dulqarnayn waa qofkii dhisay derbigii ya'juuj iyo ma'juuj. mufasiriinta waxay sheegaan sabab nusuulka qisada dulqarnayn in ay ahayd in mushrikiintii quraysh ay weydiisay ahlu kitaabkii degneed maka waxa ay ku imtixaanaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam. yahuuddii waxa ay ku dhaheen warsada nin dhulka oo idinku socdaalay sheekadiisa. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa yidhi beri ayaa idinkaga warami doonaa, balse wuxuu ilaaway nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu dhaho insha allah. maalintii labaad ayay u soo naqdeen quraysh. nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay kuma soo degin weli. waxa ay qaadatay nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu waxay ku soo dego 15 maalin kadib waxaa soo degtay waxay aayadan ah qaala allahu tacaala wayas'aluunaka can dilqarnayn qul sa'atluu calayhi minhu dikra. allah subxaanahu wa tacaala ayaa yidhi waxay ku weydiinayaan dulqarnayn, waxaad dhahdaa waxaan idinkaga akhrinayaa xaggiisa warar. wuxuu ahaa dulqarnayn boqor uu allah ku manaystay xikmad iyo cilmi. dhulka ayuu ku dhawaafay qorax soo baxa ilaa qorax dhaca. culimmadu waxay dhahaan safarkiisa dhulka oo idil waxay qaadatay 500 sano. qaala allahu tacaala innaa makkannaa lahu fi lard wa aataynaahu min kulli shayin sababa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi arladan ayaan makan siinay, dhan walba farta ayaan ka saarnay, shay walba sababtiisa leh iyo aqoontiisa waan siinay. adduunka oo idil waxaa xukumay 4 boqor, 2 muslim ah oo kale ah nebi sulaymaan calayhi salaam iyo dulqarnayn, iyo 2 kaafir ah oo kale ah namruud iyo bukhtunasr. boqorka caadilka ee dulqarnayn waxa uu noolaa xilligii nebi ibraahim. waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku islaamay gacantii nebi ibraahim. markii kacbada la dhisay kadib ayaa wuxuu la dhawaafay kacbada nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi ismaaciil calayhi salaam. dadka qaar ayaa aaminsan sababta magaca loogu bixiyey in ay tahay in uu noolaa 2 qarni ama uu xukumay 2 qarni, laakiin dhirarka qarniga fikrado kala duwan ayaa laga qabaa. dadka qaar ayaa aaminsan in sababta magaca loogu bixiyey in ay tahay labada daraf madaxiisa waxaa ka soo baxay gees, sidaas darteed waxaa loogu bixiyey dulqarnayn. qaar kale ayaa aaminsan in taajkiisa uu lahaa 2 gees. waxay culimmadu sheegaan in sababta dulqarnayn loo siiyey magacan ay tahay inuu tagay geeska qoraxda ka soo baxda iyo geeska qoraxda ay u dhacdo, sidaas darteed ayaa loogu bixiyey dulqarnayn. waxa cad in tafsiiradan midkood loo haynin daliil cad, sidaas darteed alla ayaa og. sifooyinka uu lahaa dulqarnayn waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin aamin ah ay sifada tawxiidka iyo naxariista ay ka muuqato, kamuusan leexan dariiqa xaqa ah. wuxuu ahaa dulqarnayn mid u hiiliya kuwa tabarta daran, wuxuu ka dhixin jiray cadowga iyo daalimiinta. wuxuu dhisay sad 2 buurood dhexdooda ah oo ku dhisay birta iyo nuxaasta. sababta uu sadka u dhisay waxay ahayd fasahaadka iyo dulmiga ya'juuj iyo ma'juuj inuu ka celiyo ummadaas tabarta daran. qur'aanka kariimka waxa uu ka hadlay 3 safar waaweyn oo dulqarnayn arlada dhan oo ku maray. haddii aan ku horumarno safarka koowaad, socdaalkii cilmiga ah ee dulqarnayn hala akhriyo in badan, waxaa ku duwan duruus badan. sheekada dulqarnayn way ka duwan tahay dhammaan qisooyinka qur-aanka ah, waana tan ugu qarsoon. qur-aanka kariimka waxa uu si faahfaahsan aaga hadlay 3 safar dulqarnayn suuratulkahf laga bilaabo aayadda 83 ilaa aayadda 98. safarkiisa koowaad waxa uu u jihaystay dhanka qorax dhaca galbeed. wuxuu gaaray dulqarnayn dhul dhoobo ah, qoraxdana halkaas kusii dhacayso. wuxuu ka helay halkaas qoom gaalo ah. kadib allah subxaanahu wa tacaala ayaa khiyaar siiyey oo lagu yidhay dulqarnaynow ama cadaab ama uronow. qur-aanka kariimka wuxuu ka waramay jawaabta dulqarnayn oo yidhi ruuxii dulmi fala waan cadaabaynaa, markaasaa loo celin eebba weyne wuuna cadaabi doonaa cadaab daran. yacni daalimiinta iyo kuwa alla subxaanahu wa tacaala caasiya waxay la kulmi doonaan ciqaab adduun iyo mid aakhiraba. dulqarnayn isagoo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi ruuxii xaqa rumeeya oo camal fiican la yimaada wuxuu mudan yahay ajar wanaagsan. waxaana kala hadlaynaa amarkeena si wanaagsan, yacni hadal wanaagsan iyo si wanaagsan ayaan kula dhaqmaynaa, waxna waan u fududaynaynaa. markii uu muddo la joogay dulqarnayn dadkaas u naseexeeyey, tawxiidka iyo diinta fahansiiyey, u dulqaatay in badan. ugu dambayn waa uu ku guulaystay dadkaas inuu ka dhigay dad wanaagsan. boqorkii wanaagsan
wanaagsanaa Dulqarnayn markii uu dhameeyay safarkii uu ku tagay galbeedka wuxuu aaday dhanka bari siduu sheegay quraanka arintan thumma tabaca sababa markaasuu dariiq raacay oo loola jeedo awoodii Allah subhanahu wa ta'ala oo gacanta u geliyay ayuu sabab la imaaday oo ka faa'iideystay ilaa markii uu gaaray qorax ka soo baxa wuxuu arkay uu ka helay meeshaas qoom degan badda aan xadaarad lahayn ilbaxna ahayn guryo haysan geeda ay ka hoos galaan qoraxda ay haysan waxay sameyn jireen qoomkaas maalintii badda ay ku jireen si ay kuleelka qoraxda biyaha aaga galaan habeenkii oo kaliya ayay soo bixi jireen qoomkaas aan xadaarada lahayn halkaas ayuu dacwada iyo diinta Allah subhanahu wa ta'ala gaarsiiyay Dulqarnayn boqorkii saalix ahaa safarkii saddexaad Dulqarnayn wuxuu u kacay uu aaday dhinaca waqooyi wuxuu u tagay qoom aan hadalba aqoon aan waxba fahmaynin waxay degnaayeen meel buura ah dad aan waxba aqoonin waxayna ahaayeen qoom la dulmiyay waxa dagaal ku soo qaadi jiray Yaajuuj iyo Maajuuj ayaa fasahaadin jiray arlada dadkaas xoolahooda iyo naftooda intaba qaadan jiray markii dambe qoomkaas iyo Dulqarnayn way isfahmeen waxay dhaheen qoomkii Dulqarnayn oo Yaajuuj iyo Maajuuj waxay fasahaadiyeen arlada annaga iyo Yaajuuj iyo Maajuuj na kala xir qarash walbana waan ku siineenaa wuxuu yiri Dulqarnayn wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala isiiyaa iga badan ina khayr badan waxna idinka ma rabo bas waxaan idinka doonayaa inaad wax ila qabataan taageertaan waxaan dhaxdiina yeelayaa sad ama derbi aad u adag kadib hooshii ayuu bilaabay Dulqarnayn wuxuu yiri ii keena biro jajaban markaas ayuu buurihii dhaxdooda ku shubay kadib dab ayuu ku shiday kadib wuxuu yiri afuufa kadibna wuxuu ku shubay nuxaas kadib meeshaas ayuu Yaajuuj iyo Maajuuj warkooda ku soo xiray boqorkii wanaagsanaa markaas ayuu yiri qaal hada rahmatu min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan tani waa naxariis Allah dhankiisa ka imaatay markuu amarka rabbi imaado oo qiyaamaha imaado derbigana waa la baabi'inaya Yaajuuj iyo Maajuuj way soo bixi doonaan balanka rabbina waa dhab ugu dambeyn qisadeena cajiibka ee Dulqarnayn halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna daawadaha sharafta leh barnaamijkan taxanaha ramadaanka ee adoomadii wanaagsanaa insha Allah wuu sii socon doonaa si aysan ku dhaafin muuqaaladiisa nagu soo bir YouTube-keena xikmaso subscribe dhaho sidoo kale Facebook page-keena kala soco iyo follow soo dhaho mahadsanid